بسم الله الرحمن الرحيم وانيغو احمد نور محمد عبد الله سان هوري idin kaga ballan qaaday waxaad maqli doontaan gabaygii ku saabsanaa mas'uuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliyeed hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye farmaajow kariimkii ku baray khayre kugu kaali ka lahaad waa kaas uu u kacay shaqa kormeerayo heshiis kaamiluu soo dhex dhigay kala tag dul joogay kada loob mucaarada wanaag kiisku shuban waadheh allow kala tagiin aanan maqal waan kurbanayaa dheh kalsoonida dhexdiinaan jeclahay waan ku korayaa dheh ayax kacay suuntaad buufiiseen koronkortiilaysay khayrow kabaalqaad haddaad kor ugu sii booday kobti aad tagtaba waa inaad kaalin wacan hoyso Soomaali kulankeed wax taraa oon la kala saarin kabo sharafta oo nabad ku dhali meel isugu keena kaah iyo hilaacsi onkoda kaabiga u geeya kor u qaada maatada shacbigu waxay kadeednaydhe ayax kacay suuntaad buufiiseen koronkortiilaysay shacbiyahow kulayl iyo kulayl kaarkii idin gaaray intay kimis u laabnayd naftay kaalina hayaan dheh ha yeeshee kasliita iska jira koonal kale fiirshaa kabuhuu qabyaalada u gelin si uu u koolkoolsho kudka qaranka Soomaaliyeed sii kobcinayaa dheh ayax kacay suuntaad buufiiseen koronkortiilaysay mooyihii ka loo waayay baan badar kiraarayn dheh haddaan kadimo ciidana dhisnayn qaran baa ka heen dheh kibirkii cadaawaha miyaa xooggu kadabgooyey kibirkii cadaawaha miyaa xooggu kadabgooyey kolkii ay arladu dayr heshaan nacab kulaalayn dheh allow madaxda kaalmee caqliga nagu kalkaalaysa ayax kacay suuntaad buufiiseen koronkortiilaysay koorteeda maandeeq dirkeed yay kulminaysaa dheh koorteeda maandeeq dirkeen yay kulminaysaa dheh kagaan iyo kagaan iyo kagaan kuu la taxay weeye kow kow Jabuuti iyo jigjiga gaarisana keena cadow baana kala qaybiyaye kibir ma yeelayno kirkiru ilaah isku xireen
kaafi naga yeelay kirkiruu ilaah isku xirkeen kaafi naga yeelay ayax kacay suuntaad buufiiseen koronkortii laysay mid waxaan leeyahay gabaygii intaasu ku dhammaaday ee ahaa dowladda dhexe ammaanteeda mid waxaan leeyahay shacbiga mid waxaan leeyahay madaxda maamulada mid waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida midna waxaan leeyahay dowladda dhexe shacbiga waxaan leeyahay dowladdiinna oo ka kooban madaxda sare ciidanka qalabka sida nooc walbaba ah baarlamaanka iyo wax allaale wixii mas'uuliyad gacanta ku hayo nooc walbaba ah sida maamulada horta kulli idinka ayay idinka yimaadeen shacbiyow haddaydna idinku jiri lahaynna kulligood ma ay jireen horaysaan 100 jeer idinku sheegay nin kastaba ha ahaado ninkii idin shaqaynaya idin dhibrinaya wax idin taraya xilkiisa ha idin hayo haddii uusan qofkaasu ka soo bixin ha ka dego maxaa marka culayska idinku keena maxaad saas u yeeli weydeen maxaad danihiinna uga fakeri weydeen waa 3 sababood hal sabab cudur balaaye ah oo qabyaalad ah ayaa dhiigga idinkaga taxan midda kale af wax cunay xishoo xoogaa baa la idin siinayaa waa iska aamusaysaan midda saddexaad dad ajnabiya dad isticmaar ah fikrad ay wataan inta loo soo dhiibo dad kale aad run u moodaysaan warkooda shacabka marka waxaan leeyahay intaasoo dhan haddaad dhisateen ilaashada maxaad ku ilaalinaysaan waxaad ku ilaalinaysaan kulligii waa inaad basaasiin noqotaan dalka haddaan shacabku basaasiin ay noqon wax baaraya qashin ilaalinaya nin dulli ah oo dadka baabi'inaya iska ilaalinaynin war markaa guul ma gaaraysaan haddaydna saas yeelin haddaydna fikrad dheer yeelan maandeeq idinkaa iskale war dhulka idinkaa iskale waa in laga baxaa hababacdii hore jaahilnimadii hore aragtidii yarayd fikraddii yarayd ka baxa nadiifiya qalbiga iyo maskaxda nin allaala ninkii wax idiin taraaya taageera ninkaan wax idiin taraynin daaqadda ha ka baxo madaxda maamulada waa qodobka labaad waxaayni leeyahay shacbiga waa aniga u sheegay waa aniga u caddeeyey nin allaale ninkii shacbigu rabana ha joogo ninkii shacbigu ka soo hor jeestana ha ka leexdo ma aha xariggii baa la ii dhiibay hoggaankii baa la ii dhiibay waa ku dheganaanayaa waa qabsanayaa ma dhaqaaqayo shacbiga waa xor adigu ma ada dhalin 9 bilood bay ku dhasheen qof kasta adiguna 9 bilood baad ku dhalatay waad ka deganaysaa waa marka ay ku nacaan waxaad u tari weydo qiimayn weydo isla markaasna maamulada waxa u sii dheer madaxda sare ee ummadda Soomaaliyeed waa meeshii ugu sarreysay waayo madax meel ka sarreyso oo la salaaxa male madaxdu ninkay u garato inuu xilka ka dego waa ka degayaa waayo madaxweyne maxaa loo yiri ra'iisul wasaare maxaa loo yiri
xilka dalka ayaga ayaa loo igmaday shacabka Soomaaliyeedna uu igmaday qabiiluma igmagin hasha maandeeqa u igmatay oo ay ku taxan yihiin dhammaan laamaha Soomaaliya oo dhan qabiiladooda ay ka kooban yihiin wataa qarannimadii marka wataa xaqiiqdii marka wataa dhabkii marka maamul iyo dawlad dhaxana la socda isku mid ma aha dawladda dhexe ayaa maamulada ku xiranayeen dastuur baan leeyahay maya ma laba dawladood oo siban baa markaad dastuurka ummadda Soomaaliyeed oo dhan aad leedahay aad la tansiiraysa mid maamul baarlamaanku way maqlayaa ha laga dhigo nimankaas barasaabyo wakaa runtii wataa xaqiiqdii wataa lillaahidii meesha jiradu ka jidhana waa midaas dibadahana waad aadaan laakiin kuwa aadaya waa khaldan yihiin waa xilkii ay iska lahayd dawladda dhexe ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee geesiyada ah ee diricyada ah ee meel walba xoreynaya xoreeya dalka xoreeya dalka caalamku ha arkeen ciidanka awoodda kartida dadnimada ummadda Soomaaliyeed ciidankeedu leeyahay wax allaale wixii edab darro ku wada qarankeenna ummaddeennana baabi'inaya ha laga saaro dhulkeenna oo dhan ha laga saaro dabayl caafimaad qabta shacabku ha helo maatadu ha helo degmo tuulo jees ayaa lagu caburiyey dadkii waa dhibaataysan yihiin wax idin farag ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeedow dawladda dhexe oo tii ugu dambaysay qodobkii afraad dawladda dhexe intaas oo dhan oo aan soo sheegay shacbiga Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed garbabeelkii ku dhacay hooggii ku dhacay dhibaatadii ku dhacday ad iyo aad baad ula socotaan ubax udgoon aad iyo aad u wanaagsan iyo nolol wanaagsan iyo sharaf wanaagsan iyo nabadgelyo fikraddiinna caqligiinna maskaxdiinna waxyaabaha aad ku talinaysaan saldhigoodu kuwaas ha ahaadaan waa in shacbi kasta oo Soomaaliyeed meel kastoy joogaanba nolol fiican karaamo fiican nabadgelyo iyo haybad waa inay ku noolaadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanayaa fikradooda waa inay sii laabaan mar kastaba mar walbaba waa inay ku taamaan taariikh la yaab leh inay ka tagaan intaasaanu isku ognahay ninka idiin soo jeediyey waa Axmed Nuur Maxamed Cabdille assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu